munaasabada shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya 12 dhakhtar oo diyaariyay culunta dhakhtarnimo oo ka baxay jaamacadda Kenmed University College ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay iyadoo dufcadii koowaad ay noqonaysa ardaydani waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland hoggaanka asxaabta siyaasadda xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin xildhibaano iyo bahda daneeya caafimaadka madaxweyne ku-xigeenka jaamacaddaas Cabdiraxmaan Diiriye iyo Saare Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ayaa iska doomaray sooyaalka taariikhda jaamacaddani soo martay iyo doorka ay ku leedahay horumarka waxbarashada Somaliland ka jira madaxweynaha guud ee jaamacadda Kenmed ayaa hambalyo u diray dhakhaatiirtan qalijibisay isagoo ku amaanay dadaalkii ay sameeyeen muddadii ay waxbarashada ku jireen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Somaliland Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedoole ayaa bahda jaamacadda ku bogaadiyay dadaalka ay la yimaadeen isagoo hambalyana u diray dhakhaatiirtan qalijibisay wuxuuna ka warramay ahmiyadda dhakhaatiirtan ay bulshada u yeelan doonaan jaamacadahana xulliga waxaan leedahaa aynu ka shaqayno tayada waxbarashadeena si ciddan oo waxbaraynaay ay u noqoto cid waddanka horumarkiisa runtii wax ka qabata oo isbeddel ku samaysa sidii waddanka lagu horumari lahaa aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhankiisa ka warramay horumarka waxbarashada Somaliland gaadhay iyo sida dhakhaatiirtan uu ugu hambalyeynaya aqoonta ay ummadooda u barteen madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa si qoto dheer uga warramay kobaca ku yimi aqoonta sare ee dalka isagoo iftiimiyay in dhakhaatiirtan ay wax weyn ka tarayaan adeegyada lagu horumarinayo caafimaadka dalka أنت قلنا الجنسين مصاب بيتين ويهدد الصوماليان إن المقطع أقوات عقارتين كل أقواته أغلب الوان إن نفط على بحث البشر مرة الله إن ملك هذا الوقت مرة صبحال إن قام حيو الصوماليان ثبت حي بحث البشر صراحة شرح على شيء فرصة maanta wax ku baatay oo lagu suuqeeyay ayay fasal dugsiga hoose ilaa saraca iyo afar sano oo maanta lacag ku baxday waxa lagu leeyahay in fursadda lagu leeyahay waxa wada waalidka xaqna loo wax qaran Soomaaliya oo siyaasada dowladda ay ka saartaan wala aqoontu waxa wanaagsan u tilmaanto ama ka cabsana insan ومضى الكلام عنده السوق ما نتذكر جامعة واحدة وآخر سنين الأولين ولما حكاها بيع سيدي حكاها بيع أفضل هذا الجمهور والأساس العظيم والإحترام إنما بعد الشغل ينسي وطا xubno ka mid ah mas'uuliyiintii siyaasiyiintii xildhibaanadii madasha ka qayb galay ayaa hadallo iskugu jira hambalyo iyo la dardaaran u diray ardayda qalinjabisay gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxda sare jaamacadda Kenmed ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 12 dhakhtar ee ka qalinjabiyay jaamacaddaas oo ah dufcadii koowaad